عويسي wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta wararka dunida ee London wararka caawa waxa ugu waaweyn waxa maanta muddo bil ah laga joogaa qaraxyadii Muqdisho ka dhacay 14 bishii Oktoobar warbixin ayaan idinka haynaa dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay weerarkaasi Jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland waxa xawli ku socda tirinta codadka iyada oo wali ay xaniban yihiin baraha bulshadu markii raqan laga qabsaday boqolaal ka tirsan kooxda sheegata dawladda Islaamiga ah ayaa si xor ah magaaladaasi uga baxay waxaanu is weydiinaynaa halkeebay ku dambeeyeen waxa maanta muddo bil ah laga joogaa qaraxyadii Muqdisho ka dhacay 14 bishii Oktoobar kuwaasi oo ay ku dhinteen dad gaadhay 400 oo qof isla markaana ay ku dhaawacmeen tireentaasi ka badan qaar ka mid ah dhaawacii cuslaa ayaa lagu daweynayaa magaalada Nairobi haddaba Suhaybe Maxamed Badqas ayaa booqatay mid ka mid ah isbitaalada ay ku jiraan bukaankaasi warbixintan ayay nooga soo diyaarisay Madiina Maxamed waxa ay ka mid tahay 20 qof oo lagu dabiibayo dalkan Kenya wajigeeda ayaad ka dheehan kartaa xanuunka iyo dhibkii soo gaaray hada xanuun waa haysa waxaan iska jabana waa xanuunsanta yahay way gargaar hada kalna waa hurdaa saasan ku seexdaa kalna waa iska soo jeeda suuxi ya galabtii baltaas la igu wadaayo igu luriyaan meeshan banaanka la igu geeyo halkan aan ku suganahay waa isbitaalka Imbisha waxa ku jira qaar ka mid ah bukaanadii ugu cuslaa ee ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho waxa kale oo halkan ku jira dhalinyaro dhaawac ah oo shaqooyin yar yar uga soo saari jiray qoysaskooda nolol maalmeedka aniga nin oo waxaan iska xoogsta waxaan ku iraadaa faryaama isla xaaladaas goob shaqaanka imid xaafadaygan socday gacantaana iga baxday marka lafta meesha waa ka baxday jabna ay samaysay hada sidee dareemaysaa hadda maalintii inta la keenay iyo hadda waa aad u kala fiicnaa marka maantaan caafimaad dareema kulay dad eheladooda ah ayaa isbitaalka ku haya oo rajaynaya inay bogsoodaan dibna ugu noqdaan noloshoodii qaraxaasi oo ay dad badan ku dhinteen ayaan dawladda Soomaaliya ka joojinayn inay sii wado dagaalka ay kula jirto kooxaha ka soo horjeeda sidoo madaxweynuhu ku baaqay baad la socotaa in uu socdo hadda hawlgal dagaal lagu qaadayo argagixisadan inaan la sugin oo goobahooda looga tago oo barnaamij balaaran ayaa hadda socdo sidaad ka warqabtaan idaacadahan aad ka aragteen marka waxaan rajaynaynaa insha Allah taala mar dambe inuusan fal noocan oo kale uusan dhicin qaraxaasi qasaarihiisa ma aysan ahayn mid ay dadka horay u arkeen dadkii ku dhaawacmayna ma cadda mustaqbalkooda balse waxa hubaal ah in noloshooda marna aysan ku noqon doonin sidii ay horay u ahayd Suhaybe Maxamed Badqas BBC Nairobi gudida doorashooyinka ee Jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa sheegay in 17 ilaa 18 bishan la shaacin doono natiijada doorashada wali waxa socda tirinta codadka dhammaan gobolada Soomaaliland waxa xiran baraha bulshada internetka oo nolosha saameyn ku yeeshay wariyaha BBC da Cali Nuur Salaad ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray waa maalin caadi ah Hargeysa noloshu waxa ay ku soo laabatay sidii lagu yaqaanay dadku kuma mashquulsana natiijada doorashada oo kaliya xirnaanshaha baraha bulshada ayaa si aad ah loo hadalhayaa dhalinyarada ayuu saameynta ugu badani ku yeeshay dhalinyaradu aad bay ugu xidhnaayeen xagga social media waxaanay qaarkood waxay kala xiriiri jireen qoysaskooda maadaama reer Soomaaliland u badan inay dalal kala duwan ku nool yihiin qaar badan qurba ka jiraan haasawaha laftiisa aad bay saameyn ugu yeelanaysaa oo waxa jirta dhalinyaro fara badan oo dadka ay la haasawaan ay ku maqan yihiin qurba kale ama halkan laftigeeda ay joogaan laakiin ay halkan ka wada xiriiraan waa saaxiibo hore muddo dheer ma aanay u wada qaxweyn sidan oo kale xirnaanshaha baraha bulshada ee internetka ayay fursad u arkaan adeega internetka Soomaaliland waxa uu si aad ah u baahayay muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uuna qayb ka noqday nolosha caadiga ah ee bulshada shaacinta natiijada kama dambaysta ah ee doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland waa dhacdo la wada sugayo
ka sokow guusha iyo guuldarrada waxaa ku xihan dib u soo laabashada adeegga baraha bulshada ee dhammaan gobollada Somaliland. hay-adaha u dooda xorriyadda hadalka ayaa go'aankan u arka mid ka hor imaanaya dastuurka iyo xeerarka caalamiga ah. baraha bulshada waa goobta ay dadku ku wada xiriiraan aragtiyaha isku weedaarsadaan dareenkoodana ku dhiibtaan waxayna ka sheekeeyeen waxyaabo aan xitaa warbaahinta caadiga ah ogaan karin ama aan xiiso badan lahayn marka waxay sababi doontaa in ummadda reer Somaliland fursadii u lahaayeen aragtiyahooda baraha bulshada isticmaalaan beritoolo dawladii kastaaba ay ka xiri karto marka waxay maanta keenaysaa 3 cisho ama 4 cisho waxa ka daran dhaqanka laga baran karo. waa doorashadii saddexaad ee madaxtinimo ee Somaliland ka qabsoonta balse waa markii ugu horeysay ee baraha bulshada loo xanibo doorasho awgeed taariikhda Somaliland. Ali Nuur Salaad, BBC, Hargeysa. faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya moobilkaaga. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. madaxa hay'adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay waxa uu walaac aad weyn ka muujiyey tirada dadka Afrikaanka ah ee wadamadooda ka soo haajiraya ee dalka Liibiya lagu haysto oo aad sare ugu kacday. waxaana uu sheegay in loo diiday inay dadkaasi gaadhaan xeebaha Yurub. Said Raid Hussein waxa uu kaloo cambaareeyay siyaasadaha midowga Yurub. madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani waxa uu ballan qaaday in dawladdiisu ay caawin doonto dhammaan dadka ku guriya beelay markii uu dhulgariirka xoogga badan ku dhuftay gobolka buuraleyda ee u dhaxeeya Iiraan iyo Ciraaq. dad kumanaan ah oo ka badbaaday dhulgariirka ayaa habeenkii labaad bannaanada seexday. kooxda IS waxay ka dhigteen Raqa xaruntooda magaaladaas oo ku taalla waqooyiga Suuriya horaantii 2014 bishiina soo dhaaftay ayaa Raqa hadaba laga qabsaday laakiinse waxa la ogaaday in heshiis jiray si nafaha loo badbaadiyo oo magaaladuna ammaan u hesho in gawaadhi lagu raray 200 oo ISIS ka tirsan iyo qoysaskooda iyo waliba hubkoodii oo ay ka baxeen magaalada iyagoo xor ah. su'aashu waxa ay tahay xaggee ku sugan yihiin? wariyaha bariga dhexe Quantum Summerfield ayaa warkan gaarka ah noo soo diray. waa kan Cabdirasaaq Xaaji Siraad. xataa iyadoo nabada oo ay tageen kuwii la odhan jiray dawladda islaamiga Raqa weli waa meel halisa. dagaalkii wuxuu istaagay bil ka hor laakiin weli miina yaala iyo dabinno meel walba. dadkii in yar ayaa ku soo laabatay laakiin gudahaannu gallay si aannu waddo uga raadinno burburka. waxaannu eegaynaa waddadii islaamiyiintu ay ka baxeen. inay jabaan dagaal kama iman, bas ayay ka raaceen. halkan ayay socdaalka ka bilaabeen cusbitaal gudaha ay ugu jireen muddo bil ah oo ay joogeen dagaalyahanada qoysaskooda iyo dadkay qafaasheen. waxaana loo sheegay inaanay u ekeen dad la bahdilay, dad la jabiyey uma ekeen. halkan ayay ahayd markay ka tageen inay aaminsanaayeen maalin kale inay soo noqon. heshiiskii lala galay inay ka baxaan cidina ma rabto inay ka hadasho. waa wax Raqa ay qarsatay. su'aashu waxa ay tahay kurdiyiintii, carabtii iyo isbahaysigii reer galbeedku ma intay isu tageen ayay ku heshiiyeen waddo ay kaga baxaan ISIS Raqa in la siiyo oo xataa loo oggolaado kuwii dagaalyahanada ahaa ee u kulkululaa inay joogaan agagaarka Raqa. halkan ayuu ka bilaabmay ugaarsiga iyaga Raqa taasoo na geysay waqooyiga Suuriya iyo meelo ka durugsan. heshiisku waxa uu ahaa mid laga aamusay. dagaalyahanada dalka islaamiga iyo markii ay baxsanayeen lama sawirin, laakiin qof ayaa sawir keenay. waxaynu aragnaa gawaadhi isdaba taagan oo waaweyn oon la qarin karayn. adduunka waxaa loo sheegay tobaneeye dagaalyahan in loo oggolaaday inay ka baxaan. ajnabiga looma oggolayn, hubna lama oggolayn. laakiin gaadiidka waxa ka buuxay dagaalyahanno hub ka buuxa. qaarkood waxay xidhnaayeen suumanka qarxa. maalmo markaannu baadhitaan samaynaynay waxaannu hellay waddo gaadiidku istaago duleedka Tabqa. waxaannu la kulannay dareewallo dhammaantood rayida oo geeyey dagaalyahanadii ISIS meelay xor ku yihiin. gaadiidka waxa soo kiraystay kurdiyiinta ay hoggaaminayeen ciidamada dimuqraadiga ee Suuriya. gawaadhidii baman baa laga soo buuxiyey, dabeed heshiiskii wuu burburay. waxaan ahayn 47 baabuur waaweyn ah iyo 13 basasa. dagaalamayaasha kooxda sheegata dawladda islaamkana waxa ay wateen baabuurtooda iyaguna. kolonyadeennu waxa ay isdaba taallay 6 ilaa 7 kilomitir.
waxaan sii qaadnay ilaa 4,000 oo qof oo ay ku jiraan haween iyo carruur. noo sheeg kuwa ajnebiga ah ee kuwan saarnaa gawaadhida xaggay ka yimaadeen markoodii hore. Faransiis, Turki, Azerbaijan, Pakistan, Yemen, Sacuudi, Shiine, Tunisiya, Masaari. waxaa jiray dad badan oo ajnebi ah. kuwii baxsaday qaarkood waxay soo gaareen halkan turkiga. raqa waxay ahayd caasimadoodii, laakiin waxa ay noqotay god ay ku go'doomeen. heshiisku waa laga yaabaa nabadgelyo inuu u keenay magaalada, laakiin waxa uu u oggolaaday dagaalyahanadii aad u adadkaa ee ISIS inay baxsadaan. raqo oo keliya maahee Suuriya oo qaarkood ay gaadheen Yurub. in la jabiyo dowladda islaamigihii waxay keentay digniin iyo cabsi. al-khaliifa meesha way ka baxday, laakiin dowladdii islaamiga ahayd weli meel bay jirtaa. ciyaaraha iyo caawana orodyahanka ku guulaystay ciyaaraha olombikada 4 jeer Mo Farah ayaa si rasmi ah loo siiyey biladda seer oo lagu qabtay xaflad ka dhacday qasriga Buckingham Palace ee boqortooyada. Seer Mo waxa uu yahay muhaajir Soomaaliya ka yimid isagoo wiil yara, dabeetana waxa uu noqday ninka ugu caansan ee orodada Ingiriiska. waxa uu sheegay in wax lagu farxayo tahay inuu noqdo Seer Mo Farah. talyaaniga ayaa dib isugu noqday si loo baadho sababta keentay in dalkooda oo 4 jeer ku guulaystay koobka kubadda cagta ee adduunku uu ku hadhay ciyaaraha markii ugu horreysay muddo 60 sannadood ah. waxa ay barbaro aan waxba la isku dhalin la galeen Sweden oo u gudubtay ciyaaraha ka dhici doona Ruushka sanadka soo socda. golyahanka talyaaniga Buffon ayaa sheegay in uu murugoonayo dhammaan kubadda cagta ee talyaaniguna ay murugoosan tahay, isagoo ku biiray iscasilaadda ciyaartooy waaweyn oo kubadda ka fadhiistay markii laga badiyey. caawana waa laacibkii labaad ee BBC-du magacowdo kubadda cagta ee Afrika. waa habeenkii Naby Keita oo xil ciyaareedkii 2016-17 ee horyaalka Jarmalka loo aqoonsaday inuu yahay ciyaartooyga ugu wanaagsan, isagoo ka mid noqday ciyaaryahanka sanadka ee horyaalka Bundesliga. wuu orod dheer yahay, wuu dhaqso badan yahay, goolalna wuu dhaliyaa. run ahaantii waan jeclahay dhammaan goolashiisa. aad ayuu u ciyaaraa, weliba si wanaagsan oo madadaalo leh. goolkii aan ka dhaliyay Mainz si fiican baan u xasuustaa. waxay ciyaartu ahayd 2-1. cadaadis badan ayaynana saareen. mas-uuliyad baan isa saaray, waanna dadaalay. nasiib wanaag waxaan awood u yeeshay inaan dhaliyo goolkii saddexaad. aniga xitaa waan jeclaaday goolka. markaad u malayso inuu yar yahay, waxaad qiyaasaysaa in maalin uu noqon doono ciyaaryahan caalami ah. waxa ugu horeeya aan doonayo waa inaan hooyo soo arko isla marka aan dalka gaaro. markaan garoonka ka dhaqaaqo waxaan toos u aadayaa gurigeeda. waan jeclahay. waxaan kaloo soo arkayaa saaxiibbadaydii xilligii aan carruurta ahayn. mar kasta waan la joogaa. markaan dalka ku noqdo waxyaabo kala duwan ayay ii diyaariyaan sida ciyaaraha jidadka. horyaalkan kuma jiro ciyaaryahan isaga la mid ah. hagaag tan iyo xilligii aan wiilka yar ahaa waxaan ku dhawaaqi jiray go'aan ayaan leeyahay. waalidkayga ayaan u sheegay waxaan idin ballanqaadayaa inaan Champions League ka ciyaari doono. ciyaarta iigu horaysana waan idinku casuumi doonaa si aad u daawataan. nasiib wanaag waan sameeyey taa. aad ayaan ugu faraxsanahay. hello, magacayga waa Naby Keita. fadlan ii codee in aan noqdo ciyaaryahanka sanadka ee Afrika ee BBC-da. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyey waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan bogga bbcsomali.com. intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caawa. waa ku mahadsantiin daawashadiinna. inta aynu mar kale dib u kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.